maamulkii dalka dhageysiga maxkamadda ee dacwadaha lagu soo oogay saddexda eedeysane ee saddexda sheekh Cabdiraxmaan Bashiir Cabdiraxmaan Barkhad iyo Geere Meydel ayaa dib loo dhigay maanta iyadoo haddaba maalinta Axadda soo socota la isku soo noqon doono haddaba qareen garyaqaan Zakariya Cabdillaahi Cali oo ah qareenka difaacaya saddexdaasi eedeysane ayaa isagu aan wax ka weydiinay arintaasi maxkamadda magaalada madaxdan Djibouti waxa maanta dib loogu dhigay horta koow sharcigoogii oo qura looma ogolaan shalay toole telefishinka laga soo saaray qofku intuuna ayna dambiga la leeyahay waa lagu haystaan ku cadaan lama filinka lagama duubi karo lama soo saari karo marka caynkaas haday noqoto iyo kuna sharci bay leeyihiin diidi karaan oo yiraahdaan annaka hada taswiirtan laga qaadayo ma dhaadhacayno garyaqaan Zakariya Cabdillaahi Cali ayuu kaasi ahaa haddaba xeer ilaaliyaha jamhuuriyadda Maki Cabdulqaadir ayaa isna noo sheegay sababaha keenay in dhageysiga maxkamadda ee dacwadahaasi aanay u suura gelin maanta oo dib ay u furmi doonaan maalinta Axadda ee soo socota sidaad arkayseen shakhsiyaadka eedeysanayaasha lagu soo oogay dambiyada ayaa diiday inay soo horjoogsadaan xaakinada si ay uga jawaabaan dambiyada lagu soo oogay iyadoo ay diideen miidiyaha amba saxaafadda goobta ee sawirada qaadanaysay waxayna yiraahdeen waxay arintaasi aan sawir qaadashadu dhibqinaysaa sumcadeeda markaas xaakinkii dacwad qaadista maamulay ayaa laga wargeliyay wuxuuna ogolaaday in maadaama ay sidaasi jirto waxaan u fasaxayaa ayuu xaakinku in eedeysanayaasha lagu matali karo qolka uu ka socdo dhageysiga dacwaduhu hase yeeshee qaybtii difaaca ayaa diiday arintaasi iyadoo sidaasi awgeed lagu taliyay in dib loogu dhigo maalinta Axadda dabcan sawir qaadista qolka uu ka socdo dhageysiga dacwaduhu ma banaana hase yeeshee saxaafadu way qaadan kartaa wixii sawira marka eedeysanayaashu ay joogaan banaanka amba marka ay soo galayaan maxkamadda wixii kale in faahfaahina ayaa uu tilmaamay xeer ilaaliyaha jamhuuriyadda Maki Cabdulqaadir waxaynu heli doonaa marka si rasmi ah loo soo afjaro dhageysiga dacwadaha